wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aad baan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran channelkeena Simcode School Branch 2 Official Inwalweyn. Mar kale iyo cashir cusub. Intaan cashirka gudagelin, waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan, siina share gareysaan si uu dad badan u gaaro. Waa tahee cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay conversation between boy and girl, wada sheekaysi u dhexeeya wiil iyo gabar. Ciwaankeena waa conversation between boy and girl, wada sheekaysi u dhexeeya wiil iyo gabar. Boy, wiilka ayaa bilaabay, wuxuu leeyahay, today, maanta, I have got a little bit of ability. Waxaan helay awood yar to tell you aan kugu sheego what is in my heart, wax qalbigayga ku jira. So sidaa darteed, may you give me, ma isiin kartaa consideration, tixgelin. Girl, gabadha waxay leedahay, yes sure, haa waan kaa huwa, waan ku sii karaa. Boy, wiilku wuxuu leeyahay, I was searching you, waxaan ku raadinayay for about 3 years, 3 sano. Really, run ahaantii, you are so pretty, aad ayaad u qurux badan tahay. If it is equalized, haddii la isku barbar dhigo, the world, adduunka, and you, iyo adiga, you are more expensive than the world. Adduunka adiga ayaa in badan ka qaalisan. Cause maxaa yeelay, you owned my heart, qalbigayga ayaad hanatay. Deal with me the love, caashaqa ila qabo. I have for you, adigaan ku leeyahay. I want from you, adiga waxaan kaa rabaa to be, inaad noqoto my baby, gaclisadeyda. Girl, gabadha waxay leedahay, not bad at all, gabi ahaanba ma xuma. The boys of today, wiilasha maanta, can't be relied on, layskuma halee karo. But balse, if it is true from you, hadday run kaa tahay, I can deal something with you, wax waan kula qaban karaa.